ما بيلعبنا. Hello Trio, welcome to University TV. Hello, mahadsanid. Waxaan uga warantaa garow ganacsiga aad ka samaysay. Waxaan ka sameeyay coffee shop aan ka sameeyay called Tea Tree Coffee House. Waxaad inooga warantaa dadka markaad furtay kadib ka waran ganacsiga dad badan ma idin yimaadaan. Ha, masha Allah, dad fiican, like a good amount of people bana yimid. Ma umalaynin inuu outcome sidaan camal noqonayo. Waa gartay maalinta aad furaysay iyo ganacsiga hadeer ka waran farqi intee u dhaxeeya. waxaan furnay ilaa bil iyo 2 isbuuc aan furneen. ka waran marka dadka waxyaabaha idinka iibsadaan oo aad samaysaan maxaa kamid ah. Waxaan sameynaa coffee, shaah, frappuccino iyo milkshakes iyo kanaadiga mango juices, smoothies iyo noocaas sameeyay. Qudaarta ka waran babaayga, saytuunka, qaraha iyagana ma ku jiraan waxyaabaha sameysay. Waxaan sameynaa kan fresh fruits oo wadanka laga helo. aad ay u macaan yihiin. ka waran ganacsigan Mareykanka iyo Garowe farqi ma u dhaxeeyaa. Wallahi masha Allah ganacsiga Garowe way fiican tahay. ka waran dhalinyarada adigoo kale Mareykanka jooga markay Garowe yimaadaan ma sameyn karaan ganacsiga sidaad oo kale ah. I think dhalinyarada inay soo noqdaan and more things inay wadanka keenaan ay u baahan yihiin. There's a lot of opportunity ba wadanka ka jira. ka waran maxaa kaloo rabtaa marka inaad soo kordhisid maadaama meeshaan aad furtay Tea Tree Cafeteria waa markii ugu horeysay la furo waxyaabo kale ma jiraan aad rabtay inaad samaysid. Inshallah we plan on waxaan rabnaa inaan wax kale wadanka ku soo kordhino. intaadan Garowe imaanin ka hor maxaa ka aaminsanayd magaalada. Wallahi Garowe wadanka sidaan ma u malaynaynin waxaan u malaynayay meel village laakiin maaha masha Allah waa magaalo ay noqotay Garowe. saacadaha furtaan meesha ilaa intee saacadood. waxaan furnaa ilaa 7 ilaa 10 PM laakiin waxaan haysanaa a break duhurka ilaa 3 barkaan furnaa. ma sii jeceshahay inaad wadanka sii joogtid ganacsi noocan oo kale samaysid. waan jeclahay inshallah waan joogaa wadanka ma markii kugu horeysaa Soomaaliya timaadid. waa the first time in Somalia imaada. dhalinyarada ku daawanaya Universalka la socda ee jooga wadanka Mareykanka maxaad leedahay wadanka hala yimaado ganacsi hala sameeyo. waxaan ku dhahayaa wadankiina ku soo noqda. It's very good in la arko more stuff ku soo kordhisan. Think good opportunities by wadanka. ayo ma santa. ayo la madan.